السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada khiyaarta sharafta iyo qiimaha leh. waa mar kale iyo barnaamijkii aad iga barateen mar walba inaan idinku soo gudbiyo waxyaabaha muhiimka ah ee caafimaadka bani aadamka dhaawac u keena ee aan warka loo haynin oo aan maalin walba aan isticmaalno. maanta waxaan idinla qaybsanayaa alaabada guryaha noo yaala ama alaabta aan wax ku karsano, dhibaatooyinka faraha badan ee ay leedahay, sunta faraha badan ee ay jirka bani aadamku ay geliso ama ay u keento ayaan idinla qaybsanayaa maanta. sidaad la socotaan, caafimaadku waa shay muhiim ah oo aad iyo aad muhiim u ah oo aan maanta lacag iyo lagu gadan karin. marka waa inaan is ilaalinaa oo aan ka taxdirnaa. anna waxaan isku dayayaa maalin walba inaan idinla qaybsado waxyaabo badan oo fara badan oo aad u badan inaan idinla qaybsado insha allahu tacaala. marka ogaada ee la socda barnaamijkayga. maanta waxaan idin hayaa aan rabaa inaan idinla qaybsado taawooyinka wax lagu karsado ama digsiyada wax lagu karsado, especially taawada lagu karsado canjeerada. waxaan isticmaalnaa taawada canjeerada lagu karsado maalin walba, subax walba waan isticmaalnaa. taawooyinkaas marka waxaa jira waxyaabo la mariyo ama markaad soo gadanayso waad aragteen taawooyinka waa madmadow yihiin ee waxbaa la mariyay oo la yiraahdo non-stick ayaa la yiraahdaa. macnaheeduna uu yahay waxba kuma dhigo, taawada waxba kuma dhigo. marka non-stickaas waa wax madow oo la mariyay, waa birtaas oo ah sunta adduunka ugu weyn oo dhaawac badan ay bani aadamku u geysato. waa la socotaa marka aad soo gadaysaan ama suuqa ay taalo way madowdahay, waa smooth, waxba kuma yaalo. laakiin markaad cabaar isticmaasho, especially tan oo canjeerada lagu dubo, waxaad arkaysaa iyadoo soo cadaanayso ama wixii madoobaa ay kasoo gogo'ayaan. waxaas madow intay aadeen? waa su-aal. wixii madoobaa intay aadeen? waa la cunay, calooshaada ayay galeen. marka wixii madoobaa ee sunta ahaa ee toxiga ahaa waad cuntay, calooshaada ayay galeen. maxay keenaan marka? dhibaatada ugu weyn ay keenaan maxaa kamid ah? dhibaatada ugu weyn ay waxaas madow ee la mariyay ee soo gogo'a, especially horta marka ay taawada ay bilowdo ama digsiga uu bilaabo inuu soo gogo'o, waa marka ugu xun. waa inaad tuurtaa, iskaba tuurba, guriga ha ku haysanin, marna gurigaaga ha ku haysanin, iska tuur. haddaad haysatana iska tuur. horta markuu soo gogo'o oo waxaa laga yaabaa inuu canjeerada soo raaco oo aad cunto aadan war u haynin, waad cunaysaa, of course waad cunaysaa, ilaan meel kale ma aadayaan waxan. haddii ay taawo tahay canjeero ku karsanaysid, canjeeraday soo raacdaa ama ukuntii aad ku karisay soo raacdaa, waad cuntaa. haddii ay tahay digsina oo aad karkarinaysid ama biyo aad ku karkarin ama hilib aad ku karisay ama bariis aad ku karisay, bariiskii iyo hilibkii wixii bay raacayaan, waad cunaysaa. bahashan la dhaho aluminiumka ama la dhaho foil, aluminium foil, maaragtay sida sawirka ku aragtaan, bahashaas bariiska la dul saarana aad bay u xuntahay iyaduna. waayo iyada naftirkeeda marka aad soo gadayso way caddahay, laakiin markaad bariiska kor saarto oo bariiska la kariyo kadib haddaad kasoo qaado way isbedeshaa kalarkeeda. waad aragteen, si brown oo kale noqotaa. way caddayd, way isbedeshay. maxaa dhacay? leakage wax la dhahaa dhaca oo ay waxay ku fidaa sunteeda, waxay ku fidaa cuntadii bay ku fidaa. marka suntii way ku galaysaa adiguna. so dhibaatada ugu weyn ee laga qaado suntan waa waxay tahay hormone imbalance. waxaa kamid ah fertility issues, waxaa kamid ah risk of cancerka ugu xun ayaa laga qaadaa oo meel walba gala. cancer noocyadiisa fara badan ayaa laga qaadaa. infertilitygana waa ogtihiin, qofka dhalitaankiisa ayaa halis gala. waxaa laga yaabaa qofka in uu dhali waayo. hormone balancing waa taqaanaa, hormoonadaada isku yaaca, qofka hormoonadiisa way isku yaacaan, qofka dhan si kale noqdaa. dhibaatooyinka ugu weyn ama dhibta ugu weynna waa kansarka. alaabtan kansar ayaa laga qaadaa walaalayaal, iska tuura. alaabta ugu fiican ee la gato waa kuwa la yiraahdo stainless steel. alaab haddaad gadanayso ama taawo ha noqoto ama digsi ha noqdo, please gado stainless steel ayaa ku qoran. stainless steelku naftigiisa wuu cad yahay, laakiin ogaada waa inuu noqdaa stainless steel. qaar aluminium ah ayaa jira, kuwa aluminiumka gadanina stainless steel waa inuu noqdaa. stainless steelku waa safe, wax dhibaataha uu ku keenayo ma jiro, waayo isma bedelo.
birtu waxaad ku ogaataa inay bir xun tahay xataa hadday cad tahay oo sidaa kalarkaas u eg tahay. Stainless steel kalarkaas uu egyahay waa wax cad, wax saaran ama wax madow iyo ama wax cad oo saaran maaha. waa stainless steel ayaa la dhahaa, waxba ma saarna. marka haddii aad ku qaldanto in case uu aluminium yahay waxaad ku kasi kartaa markaad soo gadato kadib oo aad istiraahdo biyo ku karkare. haddii uu kalarkiisa uu isbedelo uu brown oo kale uu noqdo oo cadaantii uu ka baxo, digsigaasu ama taawadaas ma fiicna ee iska tur. waa inay kalarkeeda sideedii aad kusoo gaday ay ahaataa. haddii ay stainless steel tahay kalarkeedu isma bedelayo, sideeda u cadaanaysaa. laakiin hadday gubato of course de wixii hadday gubtaan oo aad ka dhaqdo wixii gubtay way dhaqmaysaa, waa okay. laakiin haddii aad biyo kaliya adoo ku karkariyey iyadoon gubanin ay kalarkeedu isbedelo, waa tii xumayd ee iska tur, tii kansarka keenaysay waa iska tur. so dhibaatooyinka faraha badan ayaan rabay inaan idinla qaybsado oo ay kamid tahay kansarka. subxaan allah, ilaah inaga badbaadiyo. marka iska tuura haddii aad haysato taawo ama digsi oo madowaaday oo aad madow kusoo gaday oo kalarkii uu isbedelay ama uu xoqmay oo intuu kalarkii ka baabay wax cad ay soo baxeen, iska tuur please. ku bedelo kuwan la yiraahdo stainless steel. intaas ayaa idinla qaybsanayaa insha allah. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen, walaalahaagana uga faa'iideey oo u gudbi oo la qaybso insha allah. waxyaabo badan ayaan idin soo wadaa, channelkayga la socda insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.